Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kilibkeena waxaan kaga hadlaynaa goobaha ugu ilaalada badan adduunka isla markaana aan la ogolayn in cid u dhawaato. Jasiiradda abeesooyinka. Daraasad la sameeyay waxay tilmaamaysaa in mitir laba jibaaran oo kasta ay ku nooshahay abeeso. Jasiiradan waxa kale oo joogta abeesada labada madax ee dahabiga ah leh, waxaana la sheegaa in halkeeda qaniinyo oo keliya ay awood u leedahay inay daadiso hilibka aadamaha oo lafaha iyo hilibka ay kala soocmaan. Jasiiradan ayaa wax lagu magacaabaa jasiiradda abeesooyinka. Svalbard Sea Fault waxa ay ku taallaa goob dhulka ka sareysa 320 feet, waxa ayna dhacdaa meel u dhaxaysa Norway iyo jasiiradaha North Pole, waxaana ku kaydsan abuurka ama seedka dhirta 890,000 oo nooc oo laga keenay dhammaan daafaha kala duwan ee adduunka, waxaana loogu talagalay markay adduunka musiibo ka dhacdo in loo baxsado abuurka goobtaas yaala. Dhirta dabar go'dana abuurkeeda in dib loo heli karo. UN Professor Qobrus goobtan ayaa waxa ka dhacay dagaal sokeeye oo u dhexeeyay dadka asalkooda Turkiga yahay iyo kuwa Greek ka soo jeeda ee ku wada nool jasiiradda Qobrus, waxaana halkaas ku dhex maray dagaallo aad u qadhaadh isla markaana ay dad badan ku naf waayeen. Hadda goobtan waxa gacanta ku haya qaramada midoobay, waxaana laga dhisay gidaar ama derbi aad u weyn si aanay cidna ugu soo dhawaanin. Chernobyl, Ukraine. Sanadkii 1986 ayaa waxa goobtan ka dhacay musiibo kadib markii ay qaraxday warshad nukliyeerka lagu farsameeyo. Goobtan ayaa waxay ka mid tahay hadda goobaha aan la ogolayn in qof bini'aadam ah uu booqdo ama uu u soo dhawaado.